بسم الله الرحمن الرحيم داود يال qodobada wararka tahmiid iyo idin hayo waxa kamida rag loo haysto dilka iyo kufsiga Caashe Ilyas oo maanta maxkamad ku taala magaalada Boosaaso ay xukun ku riday ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed oo ka walwalsan khilaafka u dhaxeeya dawladda dhexe iyo maamul goboleedyada taliyihii ciidanka isku dhafka gobolka Mudug oo u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray koox bistoolada ku hubeysan oo xalay ku dhaawacay magaalada Gaalkacyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo sheegay inay ka saarayaan al-shabaab gobolada shabeellada dhexe iyo shabeellada hoose ciidanka booliska galmudug oo gacanta ku soo dhigay dad Soomaaliyaal oo ku sugnaa magaalada Balanballe ee gobolka Galgaduud akhbaaraadka dibaddana waxa ugu doorka roon boqortooyada Sacuudiga oo dishay 8 qof oo looga shakiyay argagixisanimo iyo kooxdii weerartay hotel ku yaala dalka Pakistan oo laga adkaaday intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobada warkeena ugu doorka roona ee u diyaar garooba warkaas oo dhameystiran rag loo haysto dilka iyo kufsiga Caashe Ilyas ayaa maanta lagu riday xukun dil ah kadib markii cadeymo buuxa loo helay dhageysiga dacwadda kiiska Caashe Ilyas oo muddo 8 cisho hor yaalay maxkamadda darajada koobaad ee gobolka Nugaal ayaa maanta maxkamaddu waxay ku riday dil toogasho ah 3 ruux oo kamid ah 10 eedeysane oo kufsigii iyo dilkii Caashe Ilyas loo haystay gudoomiyaha maxkamadda darajada koobaad ee gobolka Nugaal Sheekh Cabdinuur ayaa ku dhawaaqay go'aanka maxkamadda ee ku aadan kiiska Caashe Ilyas عبد فتاح عبد الرحمن ورسنة هي عبد الشكور محمد دجل هي عبد السلام عبد الرحمن ورسنة صدح ذا ويري وكاني دعان كي لقى قاضي يعديه قبضة دعان كذي يعديه هذي ويجا دعان مضودي والله صوباري نيروبي لقوا صوباري عديمه محكمة وهر كاني oo muujinaya inay isla falgaleen maada ay cadeyntaasu muujinayso inay nimankaasu gabadha nimankii kufsaday dilay qafaashay dhibtaa u geystay ay yihiin markaanu qoraalada akhrinayna ay saa muujinayso inay yihiin saddexdaasu nimanka marna aan laga saari karin ee sameeyey dhibtaa ee Caasho ku sameeyey inay yihiin maada idiyihii iyo taabashadii waxa la yiraahdo dhacaankii laga helay xukunkii maxkamaddu waxay ku xukuntay saddexdaas eedeysane oo ah Cabdi Fataax Cabdiraxmaan Warsame iyo Cabdi Shakuur Maxamed Degel iyo Cabdi Salaam Cabdiraxmaan Warsame dil toogasho oo dawladdu ay ku sameeyayso dilkaas ay u xil saarantahay inay fuliso sidoo kale garsoorku waxa uu sheegay in uu xukunka ka furan yahay racfaan muddo bil ah waxa kale oo ay maxkamaddu fasaxday 7 kale oo kamid ah eedeysanayaasha oo ay ku tilmaantay kuwa aan dambi lahayn 7 kale laakiin uu sankeenin eediisana uu ku ururiyay maadaama wax cadeyma u hayn in la dhaariyo maxkamadduna ay dhaarisay maxkamaddu waxay amraysaa lambarka afraad ilaa lambarka 10aad xorriyadooda in loo sii daayo sida ugu dhaqsaha badan dad lagu eedeeyay inay yihiin Soomaaliyaal oo raashin ku karsanayay xaafad kamid ah degmada Balanballe ee gobolka Galgaduud howlgalkan ay bilaabeen ciidamada booliiska Galmudug isla markaana looga goleeyahay sidii loo soo qaban lahaa dadka Soomaaliyaasha ah ayaa laga sameeyay deegaano ka tirsan Galmudug waxaana degmooyinka howlgalkan uu ka socdo kamid ah degmada Balanballe iyadoona ciidamada ayaa soo qabteen rag Soomaaliyaal ah oo halkaasi ku sugnaa taliyaha booliiska saldhigga degmada Balanballe oo aanu wareysanay ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay baaritaankaasi Soomaaliyaasha lagu soo qabtay tiraahana ayaa gaarayaan ilaa 5 ruux halka kuwa kalena baadigoob ayaa ugu jiraan waxaan ka soo saarnay tilaabo yaa laga qaadi doonaa amar baan ka bixinay qofkii lagu arkana oo ciqaabteeda ayuu qaadan doonaa haddii ilaahay aad iyo aad dad isku dayay waa jiraan markii aanu maaragtay ciidamadu ay arkeenna waa u digeen wixiina way ka baxeen haddana magaalada ilaalo ayaga u qaas oo maaragtay dadkaas inay arkaan oo soo qabtaan macnaha
loo diyaariyey yaa magaalada wareegaya oo ma garanaysaa ciidamada wixii ciqaab ah oo loo heli karaba waa la marinayaa, waa la xirayaa, waa la ganaaxayaa. waa qof maaragtay ku xadgudbay diinteenna macaan buu ku xadgudbay, qofkaas tilaabaa laga qaadi doonaa. wax hadda anagu hadda ganaaxina ma jiraan, laakiin dhowr qof baan xirxirnay waana maaragtay waa sii daynay markii dambena oo ma garanaysaa digniin baan uga dhigay. markiina waxay faraha kula jireen malahna waxbay qaban qaabinayeen inay sameeyaan bay rabeen. adigu 5 qof meelahaas ay ahaayeen, 5 meherdood baa isku dayday inay wax sameeyaan ayagoo qaban qaabadii ku jiraan ka soo gaarnay oo maaragtay markii dadna waxba maysi. waxaan ugu baaqayaa inay ka faa'iidaystaan bisha barakaysan, iscafiyaan, ilaahay ka cabsadaan, ay macnaha kaga faa'iidaystaan. bishatan waa bishii muslimiinta ilaahay ugu deeqay inuu dambigooda ku dhaafo, qofkii ka harana meel xun buu ku haray. marka waxaan ugu baaqayaa qof walba inuu bishaas ka faa'iidaysto. ugu dambeyn waxa uu sheegay in howlgalka uu socon doono ilaa ma ayaa ka ilaato bisha barakaysan ee Ramadaan oo haatan maalintiisii 7aad galay. taliska booliiska saldhigga degmada Balanbale ayaa sidoo kale waxa uu digniin u jeediyay dadka kale ee masoomayaasha ah iyo kuwa raashinka bisila ka iibiya, waxaana uu sheegay in sharciga la tiigsanaa doonaan cidii lagu soo qabto falkaasi. ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa ka walaacsan khilaafka u dhaxeeya maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya. shirki ka socday magaalada Garowe oo qaatay muddo 5 maalmood ah oo ay ku wada hadlayeen madaxda maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka Soomaaliya ayaa la sheegay inuu ku dhamaaday hab aan fiicnayn oo lagu kala tagay markii dambe iyadoona go'aan sax laga gaarin. khilaafka ayaa la sheegay inuu soo ifbaxay markii la isku qabsaday muddo kororsi la doonayay in loo sameeyo madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Xaaf, waxaana sidoo kale khilaafka sii badiyay markii ay isfahmi waayeen mas'uuliyiinta ugu sarreysa dawladda iyo madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. ururada bulshada rayidka Soomaaliyeed ayaa ka walaacsan khilaafka u dhaxeeya madaxda maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe. halkaad inaga daawanaysaan waa tahmeediya iminkana akhbaaraadka dibadda. boqortooyada Sacuudiga ayaa la sheegay inay qoorta ka goysay 8 qof oo ay sheegeen in ay uga shakiyeen argagixisanimo. dadkan la toogtay ayaa waxaa soo qabtay ciidanka sirdoonka dalka Sacuudiga, waxaana iyada oo maxkamad la saarin la sheegay in qoorta laga jaray. sababta loo dilay 8 qof ay dawladda Sacuudigu waxa ay ku sheegtay inay yihiin rag argagixiso ah oo argagixisanimo inay ka fuliyaan doonayay magaalada Riyaad ee dalkaasi Sacuudiga. 8 qof oo hal mar la dilay ayaa waxa ay u muuqatay inaanan maxkamad la saarin, waxaana cambaarayn ay kala kulmeen ururada u dooda xuquuqul insaanka oo ay sheegeen in ay ahayd in maxkamad la saaro haddii dambiga lagu helana la toogto ama si kale loo ciqaabo, laakiin hal mar dad inta la soo aruuriyo in la dilo inay tahay wax aanan macquul ahayn. ugu dambeynna koox hubeysan oo weerartay hotel ku yaala dalka Pakistan ayaa lagu soo waramayaa in laga adkaaday oo hotelkaasi laga saaray. kooxdaas hubeysan oo weerartay hotel ku yaala magaalada Islamabad ee dalkaasi Pakistan ayaa la soo sheegayaa in hadda goobtii ay haysteen laga saaray dad aad u fara badan oo ku go'doonsanna ciidanka dalkaasi Pakistan ay badbaadiyeen. kooxdaas oo ah koox argagixiso looga shakisan yahay oo la filayo inay ka tirsan yihiin Taalibaaniyiinta ku kacsan dawladda Pakistan ayaa laga soo afjaray hotelkaasi oo ay muddo gacanta ku hayeen. meesha galay ciidamo si gaar ah u tababaran oo dadaal dheeraad ah ku bixiyay dadka meesha joogana in la badbaadiyo, xaaladana ay deganaato, kooxahaasina meesha laga saaro. khiyaartina daawatay war wixii dalka iyo daafihiisa inaga soo gaaray oo aad kala socotaa media waa naga inta. waad ku mahadsantihiin daawashadiina. waxaan idin xasuusinaynaa haddii wararkeena iyo barnaamijyadeena ay idin qanciyaan inaad subscribe saartaan si aad u heshaan wararkii ugu dambeeyay ee dalka iyo dibadda.